إنك حاسس بيه. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan moodaa dhawaan iyo meelo badanba in baraha bulshada laga hadlayo fikirka la magac baxay ilxaadka ama alakoodka. fikirkaas oo diidan jiritaanka waxa la yiraahdo ilaah, sidoo kale diidan jiritaanka waxa la yiraahdo alquwa alghaybiya ama awood qarsoon oo qayb ah ama qayb waxa loo yaqaan sidiisaba. fikirkaas oo aad moodo in saameyn la dareemi karo uu ka geystay geyga Soomaaliyeed, taasoo aad maqasho imika maxaadarooyin ama jawaabo ku socda oo kulid ah fikirkaasi, taasoo ku tusinaysa inuu yahay fikir saameyntiisa ku yeeshay guud ahaan geyga Soomaaliyeed. haddaba barnaamijkeenan wuxuu noqon doonaa mid aan si cilmiyeysan aan uga bogan doono fikirkan la magac baxay ilxaadka, taasoo insha allahu tacaala qaab manhajaysan iyo cilmiyeysan baan u dhigan doono fikirkan. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, ilaahay baa mahadleh. intaasoo kuna sano biniaadamku waa ku guuldareysteen waana ku fashilmeen inay keenaan nidaam nololeed dhammaystiran oo falsafadaysan oo falsafad ahaanna ishaysta oo consistent ah inay keenaan, kaas oo biniaadamka u suurtogeliya kuna hela farxad haddii ay noqoto qaybtiisa ama baahidiisa ruuxiga ah ee ah qaybta ugu weyn ee ugu muhiimsan, taasoo ay soo hoos galaan ka jawaabista su-aalaha loo yaqaano al-as'ila alwujuudiya ama su-aalaha jiritaanka khuseeya. waa ku guuldareysteen biniaadamku inay keenaan manduumad ama fikir nololeed dhammaystiran oo ka jawaaba su-aashaasi, laga soo bilaabo Plato, ninka loo yaqaano filosoferka Plato la yiraahdo ama Aflaatoon, oo magaaladiisii uu ula magac baxay Utopia ama magaalada uu u bixiyey al-Madiina al-Faadila ama magaalada fiican u bixiyey, taasoo uu kaga bogtay siyaabaha ama waxyaabaha u daruuriga ah si ay magaalo u noqoto ta ugu fiican ee dhulka ka suurtagali jirta. laga soo bilaabo ninkaasi magaaladiisaas lana soo gaaro ilaa fikirkan mucaasirka ah ee aan hadda la noolahay ee la yiraahdo liberalismka, oo uu u saldhigay ninka loo yaqaano John Locke, kaasoo ay filosofaro kale ay ku contribute gareen ama ay wax ku dardareen sida John Stuart Mill, oo iyaguna fikirkaas oo maanta ah ka ugu faafsan ee caalamkana meel kasta la doonaya in laga hirgeliyo, sina loo aqoonsaday inuu yahay the 21st century religion ama diinta qarniga 21aad. fikirkaas liberalismka ilaa laga soo bilaabo manidadaas iyo utopiyada ee Plato uu saldhigay, dhammaantood iyagoo isku dayay inay ka jawaabaan biniaadamka iyo baahidiisa iyo waxyaabaha ku hagi kara farxad, oo ay ku guuldareysteen inay si dheelitiran uga jawaabaan jawaabtaasi, oo ay si dheelitiran ay nolosha biniaadamka farxad ugu suurtageliyaan adduunyo iyo aakhiro, iyagoo labada dhinac ee ruuxiga ah oo baahidiisu tahay caabudaan iyo ay tahay inuu ka jawaabo oo garto micnaha nolosha ay leedahay, qiimaha ay leedahay iyo maxaa u dambeeya kadib markuu qofku geeriyoodo, iyagoo ku guuldareystay inay intaas si dheelitiran ay uga jawaabaan oo labada baahiyood ee jismiga iyo ruuxiga isbarbar dhigaan, ta jismiga oo ah cuntada iyo taranka iyo wixii lamid ah, iyagoo si dheelitiran uga jawaaba ku guuldareystay. bal xataa fikirada sida kan mucaasirka ah ee liberalismka la yiraahdo oo isagu burburiyaba nidaam nololeedkii bulshada ee ay ku dhisnayd, isagoo ka bilaabayba asaaskii bulsho kaste oo ahaa family ama qoys burburiyey. fikiradaas iyo waxaasoo dhan dhammaantood oo ay ku guuldareysteen inay biniaadamka u suurtageliyaan oo ay ka dhigaan mid labadiisa baahiyoodba dhammaystiran yihiin, farxadna ku gaadha, guulna ku gaadha, oo ay ku guuldareysteen inay ka dhigaan. waxaa ku guuleystay Maxamed bin Cabdillah sallallahu alayhi wasallam, oo waxay ahaan ku helay nidaamka iyo falsafada ishaysata ee nolosha, taas oo uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ummadiisa baray uga tagay waxay dhammaystiran oo koobsaday sida marka ay soo toosaan qaabkay u kici lahaayeen iyo waxay odhan lahaayeen, markay kaniifka galaan lugtay horeysiin lahaayeen iyo waxay akhrin lahaayeen, markay seexanayaan waxay samayn lahaayeen iyo waxay akhrin lahaayeen, markay cuntada cunayaan iyo cuntada faraha gelinayaan waxay samayn lahaayeen, markay guursadaan waxay odhan lahaayeen, iyo nidaam nololeed iyo wax kasta, bal xataa say isku salaami lahaayeen, bal xataa markay hindhisaan waxay odhan lahaayeen, isagoo dalool fikir cusubba u diiday uga tagay ummadda. fikirkaas islaamka oo ah mid dhammaystiran nolosha labadeeda dhinacba, kana jawaabay su-aalaha asaasiga ah ee daruuriga ah ee kana weyn kuwa jismiga ah oo ah su-aalaha wujuudiga ah ee ruuxaaniga khuseeya ama qaybta qofka ruuxiga ah khuseeya, isagoo sida ugu habboon laga jawaabay una sheegay ujeedada uu biniaadamku adduunkan u yimiday
una sheegay waxa u dambeeya isagoo xadkii xuduudda u daruuriga ah ee lagu kontroolayo qaraa'ista ama dareenkan uu bini'aadamku leeyahay lagu xakamaynayo si uu u noqon qofkii ay malaa'igtu ka digtay ilaahay markuu yiri inni jaa'ilun fil ardi khalifa waxaan ka yeelayaa dhulka qof hoggaan ama khaliif waxay yiraahdeen malaa'igtu ataj'alu fiha rabbi ma waxaad ka yeelaysaa man yufsidu fiha ku burburiya oo baabiya si aan u noqon qofka ay malaa'igtu ka digtay islaamku waxa uu yeelay nafta xadkayga iyo xuduudda u daruuriga ah ee xakameynaya waxyaabaha physicalka ah ama baahida jirka ah ee wixii cuntada taranka iyo sidoo kale jirkiisa waxyaabo uu adeegsan lahaa iyadoo loo dhigay xeer iyadoo yacni aan la xanibinba balse loo yeelay xeer iyo waddo ku habboon waddadaas oo suuragelisa in agagaarkiisa uu si fiican ula noolaan karo si amni iyo nolol fiican oo adduun iyo aakhiraba farxadgiisa ay ku noolaan karaan fikir nololeedkaasi islaamka oo kaliya ayaa laga helaa waxay saas ahaataba ummadii nabi maxamed calaih salaam waa ka tegay dabadeed nebigu marka uu ka tegay oo uga tegay nidaamkaas dhammaystiran waxa ummadii yimiday in ay ummadii lagu xiro nabiga calaih salaam dadka ku xiraya oo loo bixiyay khulafaa ama khaliifyo kuwaas oo aan sharci cusub keenin adduunka balse suurageliyay in sharciga nabiga calaih salaam uu noqdo ka ummadda isku haya ayna ka jawaabaan yeedhida qur-aanka ee ilaahay ka timiday ee uu yidhi wactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu dhammaantiin xadhigga eebbe haysta hana kala tegina khulafadu waxay isku hayaanba waxay soo gaadhay taariikhda markay ahayd 1923 oo nidaam nololeedkii khaliifada ee 1400 sano ama 1300 sano soo jiray oo halkaas lagu baabiyey lana riday ummadana lagu keenay kala googo iyo tafaraaruq taasoo ummad walba ay gooni ama cirqi walba ama yacni qodo walba oo ummadda islaamka ka tirsanay ay goonidood inta loo googooyay ay noqdeen kuwa adduunka dhan iyo fikirada kusoo socda hadday noqoto dagaal fikri iyo caqaa'idi ah hadday noqoto dagaallo jiritaan ahaan khuseeyaba ay noqoto inay mid walba goonideed ay iskaga celiso oo mid walba goonideed ay markan u dagaalanto fikir iyo gacanba Soomaalidu ummadaas islaamka kama aysan duwaneyn iyo waxa ku dhacaya Soomaalidu marka laga reebo nidaamkii kaliya taliskii ee siyaad barre ee shiiciga ahaa Soomaalidu waxay ahayd in badan muddo ka nabad gashay fikrada dagaalada xagga fikirka ah ee caqiidada khuseeya sidaa darteedna ku caan baxday inay tahay ummad 100% muslim ah 100%na sunni ah balse waxaad moodaa in dhowaan arrintaasi ay tahay ama tirakoobkaasi uu yahay mid isa soo bedelaya taasoo yacni ay in badan ay ka qayb qaadanayso waxyaabaha amniga ah ama istiqraarka amniga iyo xasiloonida iyo deganaanshaha ka suuragelaya meelo badan oo Soomaaliyeed oo iyadoo marka hore amni darradu ay ahayd u diidaysa in fikirro badan oo islaamka kullid ah ay noqdaan kuwo ku kori kara ama ku tarmi kara dhulka Soomaaliyeed maadaama ay Soomaalida laftigeedu ahayd mid iyadu ishaysata iyadu isleynaysa iyadu aan baxata ismaqal iska daa fikir khaarijiya waxaan moodaa in nidaamkaas ama tirakoobkaasi uu isa soo bedelayo iyadoo qayb weyn ah ka qayb qaadanayso social media waxa loo yaqaano ama baraha bulshada kuwaas oo meel kaste oo Soomaali degto maanta laga isticmaalo kuwaas oo suurageliyay in dhalinyartii muslimiinta ee Soomaalida ahayd ay iyagu gurigooda jooga ay dagaalamaan ama ay tagaan xad lagu dagaalamayo fikir dagaaleed la isweydaaranayo fikirro kullid ah islaamka ah ay toos u tagaan iyagoo juqraafi ahaan ka fog oo degan Soomaaliya ay haddana adduunka islaamka ee kale fikrada yacni ka jira ee islaamka kullidka ah ee lagu hayo lagu soo weerarayo ay noqdaan kuwo iyagoo gurigooda jooga toos u hortaga iyagoo aan xataa diyaar u ahayn aan warnaba u haynin fikirka ugu saameynta badan leh waa fikirkan allakoodka ama ilxaadka la yiraahdo fikirkaas oo in badan adduunkaba loo diyaariyay ama loo suurageliyo waxyaabaha meediyaha ama iclaamka ama inuu adduunka si fiican ugu faafo iyadoo la rabo lana suurtageliyo waxyaabaha unnecessary-ga ah ama u daruuriga ah si uu gaaro meel kaste fikirkaas oo geyga Soomaaliyeed noqday mid saameyn ama dareen lagu yeelan karo oo la arki karo yeeshay kaas oo aad iminka aragto maxaadarooyin ku saabsan fikirkan iyadoo culmo badan ay galeen maxaadarooyin ku saabsan fikirkan ugana digeen dhalinyarta ay yihiin kuwa uga digaya ilaa haddana ay socdaan ayna noqdeen maxaadarooyinkiisu fikir Soomaalida fikir laga maxaadareeyo fikirkii ugu badnaa intaan anigu khibradeeda kooban u leeyahay aan arkay insha Allah taala xalqadeena barnaamijka ee xalqada koowaad waxaan ka jawaabi doonaa laba su'aalood oo ah kow maxaa ku kalifa qofka mu'minka ah ama qofka muslimka ah inuu noqdo mulxid
qof yacni ilaahay jiritaankiisa diida yacni maxaa ka dhigay qofka muslimka ah qof u diyaar garooba ama qaata oo qaadan kara fikirka ilxaadka kuna qasba inuu noqdo mulxid talabaad sideen uga gaashaaman karnaa inagu ama inteena aan weli noqon mulxidiin ama yacni inteena aan fikirkan weli saameynin sideen uga gaashaaman karnaa fikirkan ilxaadka labadaas ayaan insha Allah tacaala xalqadan kaga jawaabi doonaa si qoto dheerna waxaan uga bogan doonaa xalqadaha soo socda fikirkan iyo waxyaabaha uu aaminsan yahay iyo waxyaabahan inagu aaminsana insha Allah tacaala saa darteed baan barnaamijkeenan aan ugu bixiyey Allah ilxaadka iyo cilmiga